kulanti waxaan wanaagsan qiyaarta naga daawata janaanada ilayska xogaha iyo soo kala tusmada filimada sida jira hadaan kala wadaan janaan waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xariiqay qarimaha Bollywoodka kaasoo la xiriira xanta jalaash filimada soo bax qorshooyinka filimada tiyaatarada saaran kuwa sida heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale asdaan alaaba xiis weelayeen wala wadaag kartiin daawadaashana ku taxambarta tusmada filimada iyo kala bartkale ilayska xogaha meel walba joogtaan hawada waxa idin kaleena jimco wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaraadkana kuwa xiisaha badan hadaba waxa ku bilaabi doona jilaaga RRR ka soo muuqda Ram Charan ayaa markaan waxa sheegay inuu sameyn doono filimkiisa ugu horeeyay Hollywoodka asagoo soo kal markaan kana san doono qeybaha Tamilka Ram Charan ayaa markaan waxa mid ku raaxaysanaya guusha filimkiisa RRR taasoo soo kal filimkan uu yahay mid u sharxan Oscar-ka 2023 SS Rajamouli ayaa wuxuu yahay mid dadka filimada naqdiyaan ee adduunka oo dhan soo dhaweeyeen filimkiisa asagoo soo kal filimkani uu yahay mid u tartamaya 95 Academy Awards ee 2023 kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta caalami ah ee qeybaha Hollywoodka Ram Charan ayaa markaan wuxuu yahay mid martaqad u sameynayaan miidiyaha qaybta Mareykanka kaasoo jilaagan rabaan in wax badan ay ka ogaadaan filimadiisa xiga iyo soo kale inuu wareysiyo uu siiyay asagoo soo kale jilaagan ka hadlay in filim cusub oo reer Hollywood oo markaan uu sameyn doono markaan ay waxay soo baxayeen warar waaweyn kadib markii jilaaga Ram Charan la sheegay inuu ku soo bixi doono filimkiisa ugu horeeyay ee reer Hollywood waxaan arintan oo kaga dhawaaqay kadib markii uu ka qayb galay barnaamijka podcast-ka uu qabto San Fargas oo reer Hollywood waxaana sidoo kale uu ka hadlay directorada Hollywoodka uu rabo markaan inuu la shaqeeyo soo sheegay inuu rabo director waaweyn inuu la shaqeeyo intaas kadib ay hindantooda wuxuu jilaaga rasmi ah u sheegay inuu markaan uu rajeynayo inuu film Hollywood oo sameeyo soo dhaqsa badan lagu dhawaaqo arintan waxaan soo kale intaas ku sii daray inuu rajeynayo inuu la shaqeeyo Tom Cruise, Julia Roberts iyo soo kale Brad Pitt warkan ay soo kale wuxuu imaanay maalin kadib markii uu ka soo muuqday barnaamijka dheer ee DB13 ee serious-ka ah kaas oo qabto David Bolan waxaana soo kale uu sheegay in rabin ay sheegay inuu ka soo muuqdo film Hollywood waxaan sii raaciyay in markaan adduunka ay yihiin kuwa wada jira waxaan soo kale sheegay in noqon doonaan hal waxaan dareemayo sheegay in filimada markaan noqon doonaan kuwa loo aqoonsado global cinema amaba cineemooyinka adduunka waxaan sii raaciyay inuu san jir doonin waxa la laho sanadaha soo socda Hollywood iyo Bollywood waxaan sii raaciyay in ay yihiin kuwa markaan dib iskugu maandano sidoo kale darbigaasi oo noqon doono mid la gubi doono waxa soo kale sii raaciyay in arintan ka dhigi doonto in la kala badasho ayuu sheegay ama la isku milmo xagga dhaqamada marka la eego iyo soo kale in la isku dhafo xirfadooyinka labada dhinacba waxaan soo kale rabaa uu sheegay in la shaqeeyo directorada ugu weyn kaasoo khibrad leh iyo soo kale jilaayaasha waxaan soo kale sheegay in ay tahay mid markaan uu ku faraxsan yahay wax walba waxa noqon doona sheeg wax wanaagsan taasoo Ram Charan markaan rabo in filimada Hollywoodka ku soo muuqdo si kastaba jilaagan ayaa markaan wuxuu yahay mid xayeysan oo sameeyay filimkaas RRR kaas oo u sharaxan Oscar-ka 2023 taas oo waxa uu sharaxan haysiisa NATO taas oo ku jirta qaybta Best Original Song waxaan soo kale jilaagan u diyaarsan filimkiisa RC15 kaasoo kala soo muuqan doona atirshada Kiara Advani filimkaasi ayaa waxa lagu wadaa in kala soo muuqato filimkaasi ayaa waxa lagu wadaa in dhawaan la soo gabagabeeyo duubistiisa dhinaca kale ayaa waxaan eegi doonaa jilaaga Ranbir Kapoor ayaa markaan wuxuu ku dhawaaqay in uu u diyaarsan yahay filimkiisa Brahmastra 2 iyo soo kale Brahmastra 3 kaasoo shaqadiisa bilaaban doonto dabaaqada sanadan 2023 jilaaga Ranbir Kapoor ayaa markaan wuxuu ku mashquulsanaa xayeysan sameynta filimkiisa tiyaatar loo saaray Tojo Memakar filimkaas ayaa tiyaatar waxa la saaray xilli Holi oo ka jiro qaybaha Hindiya waxaana filimkan uu yahay noqon doona film oo dib ugu soo laabtay arrimaha jacaylka ee shactarada kadib filimkiisa Yajavani Hedivani waxaana filimkan kala soo muuqatay Sharada Kapoor kaasoo markood ugu horeysay film ay ku midoobeen filimkan ayaa director waxa ka ah Franjan si kastaba intaas kadib jilaaga wuxuu noqday mid aan saxiixan waxba filma kaliya waxa uu diyaarsan filimka Sandeep Reddy fanga filimkaas Animal iyo Brahmastra qaybisi taxanaha kaas oo leeyahay Muqriji jilaaga markaan waxa uu sheegay in ayaan Muqriji oo markaan uu wado qorista taxanaha filmada kaas oo filimkaas waxa uu sheegay in duubista lagu bilaabi doono dabaaqada sanadkan xilli la helay Benga Film Ranbir Kapoor waxa uu sheegay in Brahmastra 2 iyo Brahmastra 3 ay yihiin kuwa markaan ayaan Muqriji director filimka in uu qorayo waxaana rajeynayaa sheeg filimkan in duubista lagu bilaabo dhamaadka sanadkan asagoo soo kala sanad soo socda filimka la daawado Brahmastra qaybtiisa koowaad ee Shifa ayaa waxa la daawaday September 2022 sanadan ka soo gudubnay waxaana filimkaas uu yahay mid shaqo ka socotay muddo 12 sano taas ugu dambeyn filimkaas uu noqday film guuleystay waxaana hogaamiye ka ah Ranbir Kapoor iyo soo kale Adil Bhatt waxaana
filimkaasi sidoo kale qayb ka ahaayeen Amitabh Bachchan, Moni Roy iyo waxaa muuqaal gaar ah kula jilaaga Shahrukhan. waxaa soo kale u diyaarsan jilaaga filimka Sandeep Reddy Fanga ee Animal kaasoo lagu wada daawada Agoosto 2023 ee sanadan aan ku guda jirno. ugu dambeyn soo kale waxaan eegi doonaa jilaaga Akshay Kumar ee markaan waxa uu duub isku bilaabi doona filimkii Shactara qalqalme kaasoo April oo shaqadiisa oo bilaabi doono. Akshay Kumar wuxuu alaab lagu yaqaan inuu yahay filmada mid si degdeg ah ku soo afmeera isagoo sidoo kale muddo dheer aysan ku qaadan in jadwalada filmadiisa. jilaagan 2023 waxa uu diyaarsan filmo dhowr ah iyo sidoo kale filmo qaar ah loo daawaday. jilaagan markaan waxa uu soo gabagabeyn doonaa filimkiisa Premium Gentleman kaasoo lagu wado inuu soo gabagabeeyo qaybta hore ee bisha April, waxaana soo kale intaas kadib oo duub isku bilaabi doona filimka Mudassir Aziz ee Shactarada ee qalqalme. Akshay Kumar wuxuu mid markaan 50 maalin la sheegay inuu ugu harsantahay inuu soo gabagabeeyo filimkiisa Premium Gentleman, waxaana soo kale intaas kadib uu dib u laaban doona April 15keeda filimka qalqalme kaasoo director ka yahay Mudassir Aziz. filimkaas waxa lagu wadaa in lagu duubo UK taasoo qaadan doonta muddo bila inuu halkaas ku duubo. soo kale filimka arrimaha Shactara ku saabsan wuxuu yahay mid xiisiisi wata. kadib inuu soo gabagabeeyo filimka qalqalme ee April kaasoo bilaaban doona Akshay Kumar soo kale wuxuu sidoo kale duub isku bilaabi doona filimka Ganesh Vegan ee ku saabsan arrimaha ciidamada cirka, waxaana soo kale filimkaas lagu magacaabay Sky Force kaasoo director ka yahay qoraaga filimkan Run 34 Sandeep Kaulani. waxaana sidoo kale lagu wadaa filimkaas inuu film action iyo argudisha, waxaana filimkaas lagu wadaa in muddo 2 bilood lagu soo gabagabeeyo taasoo la wado in July filimkaas la soo xiro. kadib Sky Force jilaagan Akshay Kumar wuxuu dib ugu soo laaban doonaa doorkiisa Raju ee filimka Harry Berry 4. Akshay Kumar soo kale waxa uu diyaarsan filimada Oh My God, Sorry Botru iyo film kale Capsule Kill. inta aan kusoo koobnay muuqaalada iyo warbixinada maanta aan ku qaaday dhegana wararkii ugu dambeeyay maanta laga xariiqay qaarmaha Bollywoodka kaasoo astaan waxa wararku u xisaab badan oo la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada barta kale ee lees xogaa. hadda warbixinadan ka shaleegay noo saaray soo kale saxaabtiin la wadaaga meel walba joogtaan jimco wanaagsan kan kiisa xigana nabadgelyo.